بسم الله الرحمن الرحيم مقعي واحد أحمد خليفة عبد الله هذا حبسيتك سبورتية دقمة بابلي كل واد ركتان جودهان حويان كان قالي وحويان ضل كافر كوا ضل ترير بكل نوريه سدا إثيوبيا يوغانا وكله وأبهل قالي دنيا قالي كأه هدي أن بلشوين تديان كان داير سننا زو حويان إنكم بدباتنا وقتهاي وأبهل عدو قاليه سدا درتد دور deegaanka Soomaalida gobolka Faafan ee degmada Baabili wuxuu ku nool yahay agagaarka magaalada Koora ee gaar ahaan Erwin agagaarka magaalada Koora ee gaar ahaan Erwin ku nool yahay halka kullee hadda dhaqaatirtii kuwa heer federaalka imanaya deegaanka iyo markay isku tageen inuu nooc kala qabin bay go'aamiyeen marka hore waxay qalin xataa ay ku sameeyeen operation ku sameeyaan waxa weeyaan inuu ma garanaysaa faa'iido lahayn bay arkeen kadib go'aan waxay go'aamiyeen in foolka laga baxo oo saa lagu dilo bulshadiina saa lagaga aaso marka dhammaan deegaanka Soomaalida waxa weeyaan inaguna awood saaro sidaan bahalkan goobo dalxiis intaan u dhisno deegaankeena bilic ahaan iyo dakhli ahaan waxyaalo badan ayuu noo leeyahay faa'iido badan ayuu noo soo kordhinayaa hadii ahmiyada la saaro magaalada Koora agagaarka uu baalkan ku nool yahay tusaalaha magaalada Koora hadii laga dhiso goob dalxiis ah muhiim ah deegaanku intuu miisaanad ku bixiyo waxay noqonaysaa in bulshooyinka caalamka soo jiidasho ay keento dadka ma garanaysa ay soo booqanayaan dakhli aad u fiican ee deegaankeena uga soo xorooday iyo heer federaalba marka insha Allah dadaal badan baa inagu degmahan iyo gobol ahaan iyo mas'uuliyiinta naga timid heer deegaanba aan sameeyna bariyahan intuu baalkan halkan ka xanuunsanay xataa mas'uuliyiin qaar baa meeshan la seexanaysay ay la galayeen macal inaga iyo ciidanka Maroodiga isku duuban hadda markaan eegnay guud ahaan waxa weeyaan inuu faa'iido leh kulay horaan idinku sheegay marka waxaana laga rabaa bulshada deegaankuna inay ma garanaysaa wali aagan magaalada Koora ku nool inay baalkan si gaar ah u ilaaliyaan sida marka hore geelay isagoo ma wada daaqi jiray geelon bay la dhaqayn bulshadu aad bay u ilaalin jireen wacyi gelin badan inagoo degma ahaan ku siinay degmada Baabili ahaan ku siinay bulshada iska fiican weeyaan hal marka ahmiyada ugu muhiimsan halkan ka hadlayo in deegaankeenu meeshan magaalada Koora awood saaro goobo dalxiis oo muhiim ah laga dhiso wadooyin loo sameeyo sideen soo jiidasho hadda kale tartan dhaqaalaha jira guud ahaanba deegaanka iyo dalkaba tartanka dhaqaalay inagoo waxa weeyaan ilaha qaaliga haysana dakhli muhiim ah nooga soo xaro laha hadda inagu dayacno hoos u dhac dakhli ayaa inagu dhici hoos u dhac dakhli ayaa deegaan ahaan iyo degmaha inagu dhici marka meelaha muhiimka sidana dakhli fara badan ayaa bulshada deegaanka nooga soo xaro laha waxyaalo badan naga kafar gareen laha marka ahmiyada ugu muhiimsan inaan arintaas awood saaro ayaa muhiim ah bulshada deegaankana waxa weeyaan meel kasta aan joogno inaad soo booqan kartaan degmada Baabili ee magaalada Koora agagaarka Maroodiga ku nool yahay aad baad u maasantiin